halkan aan taaganahay waa warshadii dharka soo saari jirtay Soomaali Takis ee degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe oo muddo 30 sano ka badan weli sideedii ah. warshada dharka ee Soomaali Takis waa warshad soo saari jirtay dharka noocyadiisa kala duwan waxayna ku taalaa degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe gaar ahaan xaafadda Xawataako. warshada dharka ee Soomaali Takis waxay shaqo bilowday sanadkii 1966 dharkay soo saari jirtayna waxaa ka mid ahaa dharka ciidamada qalabka sida dharka ardayda dharka shaqaalaha dawladda iyo kuwa kale oo badan waxayna warshada xiligaasi dabooshay in dalka dibadiisa dhar looga baahdo sidoo kale waxay kaalin weyn warshada ku lahayd dhaqaalaha dalka warshadii sidaas u shaqeyn jirtay hadda waa sideedii iyadoo aanan shaqeynin muddo ka badan 30 sano waxayna ka badbaaday bilalaqadii dalka ka dhacay 1991 markii dawladda dhexe ee dalka meesha ka baxday waana warshada kaliya ee ka badbaaday bilalaqadii dalka ka dhacay mashiin waay oo sameeyayo dadka waaweyn dadka yaryar dadka dhaxdhaxaadka siyeedaas Soomaaliya dhan ay ku aadaaday socoto aan ku aadi jirtay waagi hore laakiin ilaa hadda ma lagu shaqo gelin oo wixii isbaarkii ay yiraahdo وكريالكان أنت صومالي وأنا أنفع. waxaa hadda si caadi ah u shaqeynaya mashiinada warshada sidoo kale waxaa ka muuqda markii ugu dambeysay shaqada warshada ka socday qaybta aliintiga liiraa 154 mashiinata 20 kaakiga way toban mashiin doob mashiin liiraa waxay shaatiyalkii sameeyay iyo hoosgundiyalkii sameeyay duntu waxay ku duumaysaa birta kanay ku duumaysaa انتو حبت كسر عشان كسوبحه وحولي دريم او كسوبحه warshada oo ka koobneed qaybo badan ayaa waxay lahayd xarun dabdamis goob caafimaad oo loogu talagalay in lagu dabiibo shaqaalaha warshada haddii ay xanuunsadaan iyo wiish cod dheer oo loogu talagalay in lagu fasaxo shaqaalaha warshada marka la gaaro xilligii shaqada ay ka bixi lahaayeen warshada inay ka badbaado bilaqada waxaa sabab u ah naftooda u horay ilaa hadna warshada gacanta ku haya qaar ka mid ah shaqaalihii warshada ka shaqeyn jiray Taliil Axmed Ayaanla oo ka mid ah dadka gacanta ku haya warshada sidoo kalena ka mid ah shaqaalihii warshada ayaa TV-ga Universal ugu warbixiyay marxaladii kala duwanaa ee warshada soo martay waxaa asaaskeedu ahaa 1966 asaaskeedu ahaa waxay ku bilaabatay ganacsato Soomaali iyo Jarmal baa bilaabay shaqay bilaabay way shaqaynaysay waxayna shaqaynaysay warshada laga soo gaadhay waxay shaqaynaysay 24 saac laba xilliin saddex kartan baa ka shaqayn jirtay suuf oo shifta ka saabsan 6 saac oo shaqaynayay shifta markuu baxaba mid baa soo galay lama xilliin لا طبعاً وحنا سو ساريسي دف يو سوف كليا وشد بدك سوف كانوا وحنا كيليني لكن ورانا الشمامة إلى بالوين أنت ولا حيسه بدو سيرا هيلان لحنا لقى أبو مشير كان على الصوص مالي وبيليه يعني حير الله هين وح لكن سو سارتنا كم لها يعني معها لكن أمريكان كأ dharka oo mataqaanaa midablaha ah oo kala duwan dharkan baatiga la yiraahdo dharka tuutaha oo mataqaanaa ciidamadu qaataan wixii dhar oo uniform loo qaato ama ciidan qaato ama markii loo rajeeyo askari arda qaato ama shaqaale qaato ayaa soo saaraysay macquul ma tahay in warshada mar kale dib u shaqeyso maxaana sahli kara waa kan Maxamed Geesi Cilmi waxay shaqay kartaa warshadan 70% hadda hadii la helo suuf loo keeno iyo waxyaalaha yar yar oo ay u baahan tahay waxaan isleeyahay 70% inay shaqay kartay kici karto baahida dalkan inta badan oo abaarahan dadka baahan iyo waxa dhan iyo deegaankan iyo Hirshabeelle iyo waxaan oo dhan inay wax ku tari karto oo intaas oo 2000 oo qofooda ka shaqay jirtay 2000 markay shaqayso meeqay dhalay meeqay biili kartaa oo kumood oo qoys marka baahidaas way dabooli kartaa 70% waxaa isleeyahay inay shaqay kartaa aaminsanahay hadda
dadkii naftooda u horeyn warshada ka hor istaagaan boobkii dalka ka jiray qaarkoodna ku dhibaatoobay ayaanan weli wax mudnaana ka helin madaxdii dalka soo maray waxayna baaq u direen dowladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda runtan baa la yidhi ninkaan kuu sheegin runku uguma ooyaani maanta haddayna dowladda dhexe gurma degdega ku imanin warshadii way baaba'aysaa maxaana baabiinaya dusheedii way qaawantay dhulka qaarkood idinkuba waad aragteen taa in laga badbaadiyaa la rabaa midda kale dadkii intaa soddonka sano soo hayay iyaguna 3 arrimoodba u baaba'een duruuf dhaqaale xumo ku habsatay warshadii webi bay ku taallaa iyo duruuf caafimaad xumo iyo duruuf daal iyo duruuf da'eed intaba way wada qabsadeen maanta dadkii ilaalinayay iyaga naftoodii baa daalay oo niyadii ka dhintay oo maartay dhaqaalihii ka dhintay oo maartay sidii waa la idin imaanaya waxay u lahaayeen wuxuu soo socday kolkii waayeen niyadii ka dhintay kolka anagu waxaan baaq dowladda ee cusub ee maanta la sugay ina dowladda si dhaqsiya ku timaado oo badbaadiso oo gurma degdeg ku timaado gaar ahaan waxaan canaan u diraynaa anagu dowlad kasta oo la dhisaba wasaarad warshadeed baa la dhisaa weli wasiir halkaa yimiday oo warshada yimiday oo maartay booqasho uu ku yimidana ma hayno waxaanu leenahay warshadaha loo soo gurmudo Ibrahim Ali Nuur TV Universal warshada dharka Soomaaliya